Arsenal oo 7 dhibcood hoggaanka ku dheereysatay halka Nottingham Forest ay barbaro ku qabatay United. Arsenal ayaa sii bilaarisay hoggaanka horyaalka Premier League iyagoo hadda ka sareeya kooxaha kale 7 dhibcood kadib markii ay caawa 2-0 kaga adkaadeen kooxda Burnley kulan ka dhacay garoonka Turf Moor. Arsenal ayaa kulanka soo gashay iyadoo ay hore u gaartay 4 gool oo xiriir ah waxaana ciyaarta ay xalisay qaybtii horeba. Victor Gyökeres ayaa mar kale madax ku dhaliyay laad koorna ah si uu Arsenal ugu dhiibo hoggaanka ciyaarta. daqiiqada kadib Leonardo Trossard ayaa baas qurux badan ka soo qaaday garabka weerarka waxaana si xoog leh shabaqa ugu hubsaday Declan Rice taas oo ciyaarta ka dhigtay 2-0 ka hor qaybta nasashada. Guushan waxay Arsenal gaarsiisay 25 dhibcood taas oo 7 dhibcood uga dhigaysa inay ka sareyso Bournemouth oo hadda u safraysay Etihad Stadium si ay ula ciyaarto Manchester City. Arsenal sidoo kale waxay 10 dhibcood ka sareysaa Liverpool inkastoo Reds ay fursad u haystaan inay farqiga soo yareeyaan marka ay caawa la ciyaaraan Aston Villa. dhinaca kale Manchester United ayaa si dirqi ah ku heshay 1 dhibic kadib markii Amad Diallo uu dhaliyay gool daqiiqadii ugu dambeeyay si ay barbaro uga helaan Nottingham Forest kulan ka dhacay garoonka City Ground. Fiidyo wanaagsan saaxiibayaal meel baad naga daawanaysaan waa mar kale barnaamijkeeni bandhiga ciyaaraha oo aan caawa ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay ilaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran mahadsanid.